meeshaan waxaa isugu nimid in maaragtay jaaliyadda gabooyaha ah ee magaalada waddanka Jarmalka in aan urur ka sameyno ururkaas oo aan la kala soocin dadka taas ahaan dadka inaan la kala saarin waxaan ugu talagalnay sanadka inta ka hartay inaan sanadka gudihiisa inaan isku aruurino dadka waxaan ka codsanaynaa marka gabooye meel kasta adduunka ka joogo waxaan ka codsanaynaa inay dadka kala saarin alis walaaleysto is ilaaliyo hal meel inaan lagu soo wada jeesto qadiyadeena qaaska anoo ah waayo waxaan saaranahay hal markab baa wada saaranahay markabka marka hadduu dhexda ka duulashamo waa wada degaynaa marka waxaa loo baahan yahay in aan sida ugu wanaagsan oo ugu macquulsan oo ummadeena dadkeena dhibaataysan ee gudaha ku jira aan ku caawin lahayn mideeda kale waxaan ka codsanayaa dadka qurbaha jooga meel walba ka joogaan Arab Afrika Europa America meel walba joogaan waxaan ka codsanayaa inay gacanta soo qabsadaan oo meel ka soo wada jeestaan oo qadiid ay u arkaan hal qadiid oo hal meel u jeedo inay u arkaan inaysan u arag reer hebel iyo reer hebel inay soo arag taas ayaan ka codsanayaa in la wada xiriirana waa ka codsanayaa taas hadda waxaan ku wareejinayaa walaalkay Mahdi Ismaaciil tafadhal waad maasantahay walaal Cabdullaahi waa sidaad u sheegtay dhibkana haysta ma aha mid waqti dhow bilowday waa mid waqti badan soo jiray sidaa daraadeed waxaan u baahannahay sidii aan dhibaatadaas uga bixi lahayn waa ayaan daro anagoo dad maaragtay Soomaaliyiin ah muwaadiniin ah inaan haddana dhulkii aan u dhalanay iyo dalkii aan u dhalanay midab kala sooc iyo hayb kala sooc aan ku qabno runtii waa ayaan daro aad iyo aad u weyn wax la qaadan karana maaha sidaa daraadeed waxaan jeclahay dhammaan dadkeena meel walba ay joogaan gudaha iyo dibaddaba in ay arrintan ka midoobaan isku mid ay ka noqdaan mowqif cad ay ka qaataan sidii ay arrintan isaga mid noqon lahaayeen haddii ay taasi dhicin waxay noqonaysaa in dhibaatadani ay sii socoto xalka ugu horeeya waxa weeyaan in annagu aan arrintan ka midowno isku mid aan ka noqono mowqif cad oo isku mid ah inaan arrintan aan ka gaadhno waxaan halkan mahad weyn ugu soo jeedinayaa dhalinyarada arrintan u istaagtay inay wax ka qabtaan runtii waxay u baahan yihiin dhalinyaradan in arrintan lagu taageero waxay wadaan arrin aad u wanaagsan waxay wadaan arrin mustaqbalkeena ah waxaan u arkaa in ay tahay arrin fiican oo ay wax ku toosinayaan uma arko in ay tahay mid ay odayada kaga soo horjeedaan waayo haddii aan laysa sixin waxba ma hagaagayaan sidaa daraaddeed yaan loo arkin in ay odayada ka soo horjeedaan ee ha loo arko in ay tahay arrin wax lagu saxayo haddii aan laysa sixin oo aan la xisaabtamin waxba ma hagaagaan sidaa daraaddeed hawshan ay wadaan waa hawl aad iyo aad muhiim u ah loo baahan yahay in loo soo jeedo iyagana loo aqoonsado inay yihiin hawl wanaagsan sidaa daraaddeed odayada iyo dhalinyaradaba waxaa loo baahan yahay in ay wada shaqayn yeeshaan arrintanna ma aha arrin sahal ah arrin si sahal ku dhammaanaysa maaha sidaa daraaddeed waxaan leeyahay arrintan guud ahaan waa waajib marka ugu horeeya ah in aan annagu ka midowno wax ka qabanno mowqif cad iska taagno dhalinyaradana
lagu taageero hawshaas ay wadaan waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمود محمد محمود وكما قاعد الحيلاب صابون halkan waxaan ka soo jeedinayaa dhamaan guud ahaan gabi ahaan saan u wada dhannahay waxa weeye weel yar iyo weel weyn in waxna lagu siin oo la kala qaybin waxay umada ama qariyada ama weligeedba ama dib ugu dhacnay waxa weeye kan baareer hebel kama wardad gabooyaan nahay oo meel ka soo wada jeeda ilaahay tawfiiqdana oo fajiyo xaqeena soo dhacsano marka ana waxaan idinku talin lahaa oo idin lahaa wax waayeel ah iyo wax yani suldaan ah iyo wax karaamada ilaahay baa bixiya nin aan 9 bilood ku dhalan ma aan biyo hooyo ay dhalin nin ka fadli badan ma laha war meel aan ka soo wada jeesano cadowga aan iska dhicino hadaan gabooyanahay waxaan dhihi lahaa oo hadalka ku soo gabagabeyn lahaa tawfiiqda ilaahay oo faajiyo iimaanka ilaahay oo sugo yaa raqiis noqonin qiimo yarna la siisanin oo la kala qaybinin weel been xanuuqooda siinayaan qariyada ama shisheeyaha ama umada aan la noolnahay weelgood taas inoo kala qaybin jireen midba gooni wax loo siiyaa oo loo kala qariyaa marka caad qaatayaal yaa noqonin dad raqiis yaa noqonin waxa weeye fikrad yani lagu cusub ha noqoto iimaan alla uur buuxiya meel laga soo wada jeesto far kaliya iyo mid kaliya tiir kaliya iyo gacan kaliya ilaahay naga dhigo waa idin soo duceynayaa taladana fiican iyo yani hal la qaato inta fikradeyda